xaflad si heersara loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday hoolka weyn ee Kuwait waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin aqoon-yahanno iyo dhalinyaro kuwaas oo inta badan ka hadlay goobta xafladda ka dhacaysay ujeedka laga leeyahay xafladda ayaa waxa ay tahay si awaalmarino loo guddoonsiin lahaa ardayda tartan aqooneedka ee fasalada ku soo baxay munaasabadan oo isku jirtay xiritaanka tartan aqooneedka ee dugsiga iyo abaalguddoonsiinta kooxdii kaalmaha hore ee ka galay ee tartan aqooneedka ayaa saakay lagu qabtay xarunta dugsiga Ubaya bin Kacab ee Kuwait tartanka oo mid sanadla isla markaana ay qabtaan maamulka iskuulka iyo macallimiinta sanadka ayaa waxa tartamay 16 group waxa ugu dambeyntii u soo baxay 2 group oo u soo gudubtay finaalka oo kala fasalada 3 iyo 2 xafladan oo lagu soo bandhigay gabayo iyo suugaano waliba ahamiyada waxbarashada ay u leedahay dhalinyarada jiilka Soomaaliyeed ugu horeen waxa madasha xafladda lagu soo dhabeeyay maamulka iskuulka Kuwait waxa uu hambalyo diiran u diray labada group isaga oo carabka mariyay sanad walba sidaan oo kale inuu abaalmarino u sameyn doono sanadkan ay ka duwan tahay sanadii ugu dambeyn hambalyo kadib waa uu bogaadiyay inay hore u sii socdaan oo ay noqdaan ubixi dalka iyo ayatiinkii mustaqbalka xafladan oo ay qayb weyn ka ahaayeen qaar ka mid ah ardayda oo ay ku soo bandhigeen gabayo amaano iyo suugaano